qof inta la hadlay ma aanan dhihin ha loo sheego shabaab iyo cid kale midna diintan ka baxay si hoose qof ugu ma sheegin si layfana qof ugu ma sheegin haddana waxaan diyaar u ahay inta aan noolahay inaan diinta islaamka ku sugnaado haddaan dhintana ilaahay waxaan weydiisaa inaan ku dhinto haddii la soo bixiyo ilaahay waxaan ka baryaa in la igu soo bixiyo diinta islaamka waxaan u dagaalamayo qabiilkayga iyo reer hebel iyo deegaan afwaax iyo kama mid ahan maadaama diinta aan leeyahay waxaan ahay inaan dambi ku galay aysan jirin diinta ilaahay aan rabaa inaan u dagaalamo aan dhinto in lay dilo iyo in hadda la iska kaydaayana midaan ku noolahay ma jirto qofka mar walba geeriyo ku xukuman yahay waxaan idin leeyahay haddaad dad muslimiin tihiin oodnan tuuga ahayn oodnan nimankaas alaab ka xadin oodnan maal ka dhicin oo aan diintiina shabah idinka lahayn inaad muslim tihiin janna idin soo dagatay dagaalama waxaa naloo sheegaa oo hadda aan idaacadaha ka dhegaystaa dawladda murtadiinta iyo midda gaalada iyo ridada dawladda idinka ka socday ma muslimiin mise wax kale dad muslimiin soo ma hidin aniga waxaan maqalsanahay Mareykanka in dad muslimiin joogaan mana tagin afkiisana ma aqaan waxaan rumaysnaa qofka muslimka sheegtay inuu muslim yahay haddii qof dadkan kamid ah iraa gaalaan ahana lagama yaabo inaan u ka aqbalo inuu muslim yahay ilaa asaga sheegtay gaalnimee anigu islaamka aan sheegay ilaahay marka hore igu lahaa inaan rumeeyo asagaan rumeeyay allahaas macmal maahan mid cid u samaysatay maahan waa allihii koomkaan lahaa haddaan islaam ku noqo waa inaan allah rumeeyana nin meel fadhiyo ra'yigiisa ku noqayo ma jiro waxaan idin leeyahay waxa xaq nagu ah inaan diinta islaamka u difaactano in qofkii saa'il xataa soo tawxiiday hadduu saa'il noqdo sharciga amray inaan iska dhicino haddii marka ay muslimnimada aan sheegayna sheeg iska ahayn waxa la guba hadda guriyii waxaan u maleeyahay inaan guri gaal jirin barkadiina waa la qarxiyay waligay ma aanan malqab baraag salaad waajib ku tahay soon iyo saka iska bixin midna qofka muslimka oo furta xoolo gaala leedahay asaga leh sida diinta ilaahay ay qabto wixii asaga taabacsan oo muslimiinaha ku dhaqma in gaala wadan laga furto meel la isku hayaa la isku ma hayo hadda aniga hal gaal oo taageersan ciid ku oogi wax gaal oo taageersan ma jiraan nimankan dawladda sheegteen dhexe mid sarasa sheegteen waxaan ka rabnaa muslimiin inay nagu taageeraan muslimiinta kale oo maqlaydana waxaan ka rabnaa inay islaamnimo nagu taageeraan annagana waxaan iska rabnaa in islaamnimo ku difaactano aanan qof muslimiina dulmin xadin caayin qofkii laakiin ay asaga kaba suura gali weydo islaam ilaahay dartii in loo noqdo kaas ma waxaan iska weydiihaynaa inuu dul yahay wax meen iska weydiihaynaa haddaan dilin asagaana dilaa baryana lagu daymaa iyo alwasaad waxaan leeyahay qof la amraay in ciideedii ka soo kacdo oon anigu ka codsaayin kamid maaha qoftii ciidii seexa kartaa seexad oo la deeyahay qofta kale nafta iyo ciidda iyo maalka waxa dhanba niman doona waxay ku doonayaan marka hore inay diinta ilaahay leeyahay asagoo ku arag qof in inta is aragtiino is waraysitiin xataa aad tira markaas ay diin darro sheegata ku xukunta lama yaabo hal mid kama aqaan mana yaqaanin inaan sidayda iyadoo oo si aqoon waxay ku soo daga gaalnimo igu sheegay ma diin ilaahay kamid tahay jirta kitaab ay ku qoran tahay nimanka afwaax jooga waa gaalo qoftii keenta waxaan weydiinaynaa rasiidkiisa bal kitaabkaas iyo cid uu ilaaha haday san jirin oo rabbiga idin abuurta rumaysantiin xaq darro faasida oo cad aan lagu haystaa inaan ka dagaalano waa qasab hadday ku farxi lahaayeen waxaan rabnaa naftanada iyo maalkanaga nafsaka iyo diinta ilaahay inaan ka difaacno diinta annagu aan difaacayna waa tan ilaahay waxa ninkii rumeeyana waa walaalkeen ninkii muslimiin xataa dad shabaab nin kamid yahay rumaysan inaan muslim nahay oo nooga leexaya ma raadsayn anagu waxaan rabaa inaan cod dheer mid gaaban ku sheego dada waxay yireen jireer iyo eelahay iyo reer hebel iyo ma jirto beel aan dagaalano Soomaaliya dhulkaan dadka ku aadan ayr iyo duduble iyo saruur iyo hal qof oo jufahan dagaal u leenahay miyaa jirta koonka kuma ogin dad kala aan dagaal ku leenahay miyaa jiro oo jareer iyo jilac u kala jecelnahay ma jiro eelay aan dagaal leenahay luqadda afmay iyo maxaa tiri waa walaalo waa qof Soomaaliya muslimna waaya qof aan luqadda u ku hadlayo aan kula leenahay dagaalna ma jiro muslimku waa noo muslim laakiin ninkii muslimnimo ka suura gali weydo oo badbaado looga waayo oo waxa sharcigu amray inta iska baal maray aniga leelaba xisaabtay ma hadaan dadka laayo iyo hadaan ka leexdo umad in iska dilaa lay faray islaam ku dayma gaalnimana ku dayma wax in isaga qabin ku dayma qofkii saas yira anu kulay inaan daayaga dhalamay qofka saas yira inaan kala leexano inaan isdilna waa badanahayga waxaan isleeyahay ka wacdi fiicnaa ma ilaahay subhanahu jalla wa ala nabi Muuse wuxuu soo diray fircoon qofka fujuur badan caalamka maysan joogi waxa ka caraysiiday
ilaahay ma dhihin soo dharbaxay iyo soo dil iyo soo caay midna qowlayna kula hadal yiri nabi muuse marka u tagto fircawn markuu ku yiri ilaahay ka baqna fircawn waxay ku bixiday ilaahay ka baq inuu laayo reer Israa'iil oo yira dhammaan ha laga taqaluso nabigana ha la dilo waxa ka caraysiiyay waa ilaahay ka baq ilaahay aan naqaane ilaahay ku abuurta ka cabsa ka caraysiiday haddaysan nimankaas ka caraysiihayn rabbiyaa naqaan ha naga leexdaan hadday ka caraysiihaydo ilaahay aan abuurta isagaan rumaynay waxa wallahi billahi oo tallahi waxaan dagaalay inaan ku dayay sabab kale diinuna amraydana ma jirto hadday muslimiin oo ay maqlaayaan oo alla iyo nabi ay yaqaaniin ha nooga baxan dalkanaga dadkanaga baraaganaga ay gubeen ha keeneen iyo hantidii ay qarxiyeen haddayse yeeleen waana wacaan waa isarkayna inaan dhimano waa danahanaga kala kan ka soo hormaray mayna waqtiga ilaahay noogu tala galay ninayo sangeeri ka baqin waa ku qasbantihiin inta bacdal anagu waxaan nahay dad isdiray ka caraysan dibka loo geystay oo shabaab u geystay oo maalkeenna ku dhacay oo barkadaheenna ku gubay oo guryaheenna ku gubay oo dadkeenna ku qaatay dadka ka caraysan ayaana haddii ilaahay qadaro fariisimada geedka harsadaan baan naqaan meeshay ku hoydaan baan naqaan meeshay maartay sahanka uga laabtaan baan naqaan meelaha ay miinada geli doonaan baan garanaynaa kulligood waa ka daba tagi doonaa haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala inaan uga daba tagno nafteennana ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sallimno maaragtay ajarna ka goobno intaa baan diyaar u nahay waxaan leenahay intaa bacdal waxba warku waqti gaaban baan joognaa howlo badanna dadka sugayaan waxaan ku soo dhowaynayaa hadalkaas wixii naga dhiman waxba ka tafaasiiri maayo waa taqaaniin waana u jeediin wixii naga dhiman mas'uuliyiinteennan ka sugaynaa ilaa heer maaragtay federaal iyo heer maamul iyo heer guddoomiyada waxa naga dhiman waad u jeediin wixii naga dhiman intaasaan horta ka sugaynaa insha allahu kariim annaguna shaqada waajibkeeda meesheena la kaga diro iyo mas'uuliyaddiina la saaro inaan diyaar u nahay inay sheegaynaa meel allaale iyo meesheena la kaga diro inaan diyaar u nahay waxaan rabnaa hadduu ilaahay inaan isxorayno isma sii hay doono dadka deegaankan degan ee beeshaan halkan degan waxa ay caan ku tahay horta reero dulmi ma intaan ka baranno haddii la dulmiyana lagama faa'iido oo ciddii dulmidaahay aakhirkeedu meel xun ay ku dambaysaa waxaa la rabaa wixii nalaku bartay inaan ka dhabayno maanta waa ogtihiin in halkaas dulmi nalakugu yimid oo masaajidayadii la weeraray oo diintaydii iyo sharafkaygii lagu xadgudbay oo barkadahaygii iyo ceelashaydii la dumiyey oo deegaankaanaad ogtihiin isgaarsiintu sida ay ku tahay ama hadday noqoto wada xiriirka ama hadday noqoto EVC balaaskii oo lagu kala shaqaysanayey oo aan lacag kaloo caddaanuhu jirin sida isgaarsiintu ku tahay aad ogtihiin oo ay tahay tiirka nolosha tiirdhexaadka ay u tahay la baabi'iyey ninkaasi dagaal wuxuu qaban karay waxba ma reeban wuxuu sugahayaa marka waa annaguna markaan sidaan yeelno wuxuu sugahaya isaga wuxuu samayn lahaa waana tusay waxaan rabnaa inaad diyaargarowdaan inaad intaan ka sii badataan halkaa hadda maraan soo soconay ciidan kalean ku soo aragnay ciidankaasaan ku soo aragnay iyo idinku waa isu muuqatiine inaad isku xirantaan oo aad noqotaan hal far isku noqotaan si ay u suurto gasho inaad isla jaan qaadaan aaggana meesha ku habboon la geeyo innaga hadduu ilaahay idmo garabkiinnaan nahay idinka dartiin iyo dadka la midka ah oo marrasta oo la dhibaataynayo ayaan carrada u soo galnay kolley haddaanuu shakhsiyan hoo maanta ka hor meeshaan ma iman waa ii kow laakiin dadkeenniyaa deggan waajibay nugu taha marka wax allaala wixii dadkii loo qaban karo inaan u qabanno inaan dagaalanno oo dhiiggeenno meelo badana dhiiggeennu ku daatay in tanna uu ku daato aan diyaaruna idinkana waxaa idinka rabaa fursadahaas inaad ka faa'iidaysatiin ilaa heer dowladda dhexe ilaa heer maamul goboleed kulli garabkiina lagu yahay intaa fursaddaa haysataan waxaa la rabaa nimankaa inaad iska hor qaadaan diyaar ma u nahay inaan nimankaa cadowga iska wareejinno garabkiina allaha galo waa isla joognaa kala hari mayno intaan idin qudbayno idin soo hor istaagno iska laaba mayno meesha ugu horraydaad nagu arkaydaan hadduu ilaahay inaan inta idin qudqudbayno wal idiin sheegsheegna aan iska laabanno ma dhacayso meel allaala meesha cadowgu taagan yahay ama uu ka dirirahayo afka ugu horreeya halkaasaa noo ballan
ninkii gadaal u hara waa la isbarana ninkii gadaal u hara oo ariga iga meelaha arigaan rabay inaan aan soo maxaa la dhihi jiray inaan soo shubto meeyad arigaan rabaa inaan shubto iyo cidaan rabaa inaan sii raro xoogaa meeshii abaar noqotay iyo ha laga ballamo cidaha iyo ariga iyo ha laga ballamo iyo wixii meelaha ku harharay kolley in badan nimanka khawaarijta ayagaaba gurtay wixii inta hartay dadka ha lagala ballamo islaamaha iyo ha lagala ballamo iyo carruurta ragga qoryaha haysta ahayna ha soo baxeen intaan keliya maahana intoo kale la iska rabaa